Thierry Henry oo si weyn u difaacay Arsenal kadib dhaliilo cusub oo loo jeediyay. Halyigii hore ee Arsenal Thierry Henry ayaa ka hadlay dhaliilaha ku saabsan qaab ciyaareedka Arsenal, isaga oo ka jawaabay eedeymaha ah in kooxdu tahay mid caajis badan oo daawashadeeda dhib badan tahay marka loo eego qaab ciyaareedkeeda. Arsenal ayaa lagu tilmaamay inay ciyaar caajis badan soo bandhigto maadaama ay ku guuleystaan habab qariib ah, inkastoo ay 7 dhibcood ka sareeyaan Manchester City horyaalka Premier League. Laakiin Henry oo la hadlayay CBS Sport ayaa sheegay in Arsenal ay si fudud u raadinayaan habab ay ugu guuleysan karaan ciyaaraha. Ma aha inaad jeclaato sida Arsenal ay u ciyaarto, laakiin waa inaad ixtiraamtaa. Ciyaartii Bayer Leverkusen ma ahayn mid weyn, laakiin xitaa habeen uu xaalka sidaan ugu xun yahay ayaan helnay waddo aan ku barbarayno ciyaarta. Taasi waa waxa kooxaha sare ay sameeyaan. Ramadaan Kariim saaxiibayaal, waa anigu ah Faisal Axmed Maxamed daacad oo idin soo jeedinayay warbixinadii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka la soo gaartay ilaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena si share gareyso. Haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biiro ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.